kulan saacado qaatay ayay xarunta madasha xisbiyada qaran ee magaalada Muqdisho ku wada qaateen guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo madaxweynayaashii hore ee dalka. kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud waxaana shirkooda ay uga hadleen arrimaha doorashooyinka, ammaanka dalka, xiriirka dowladda federaalka iyo Itoobiya, arrimaha muranka badda iyo wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland. Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee dalka ayaa ugu horreyn hadalka qaatay waxaana uu faahfaahin ka bixiyay kulankii shalay iyo maanta ay la qaateen guddoonka golaha shacabka. waxaa kale uu muujiyay aragtidooda ku aadan doorashooyinka Soomaaliya. gudoomiye ku-xigeenka waxaan ka wada hadlaynay sidii loo bilaabi lahaa tashi iyo wada hadal ku aadan arrimaha doorashooyinka. waxaan rabaa inaan magaca madasha ugu mahad celiyo gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa dadaalka uu sameeyay ama ay sameeyeen safarka ay noo soo galeen waqtiga dheer oo ay nasiyeen. waxaan leenahay waa arrin geesinimo leh, waa arrin fiican. Soomaalidu sida badan wada hadalka ma jecla, laakiin anigu waxaan aaminsanahay wada hadalku inuu fiican yahay. hadduu run yahay hadduu been yahayba waa wada hadal. waxaan rajaynaynaa inuu run yahay. marka kaasoo ku saabsanaay madashu iyadoo taas ka duulaysa waxay aaminsan tahay inay laga maarmaan tahay doorashooyinku inay waqtigooda ku dhacaan, ay noqdaan doorashooyin hufan, laga wada tashaday, raali laga yahay, natiijadeedana qof walba oo Soomaaliya uu diyaar u yahay inuu fuliyo. sidaas darteed madashu waxay ka digaysaa muddo kororsi magac kasta loo bixiyo oo ay ka shaqeyso xukuumadda. si taas loo gaaro waxaa lagama maarmaan ah wada hadal dhab ah oo ku aadan arrintaas oo saamilada siyaasadeed dhammaantood ay ka wada qayb qaataan. Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa saluug ka muujiyay xiriirka madaxda dowladda federaalka iyo dowladda Itoobiya oo uu sheegay in xilligan ay faraha kula jirto arrimaha gudaha ee Soomaaliya. waxaan maqalnaa mar walba ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo ka hadla arrimaha Soomaaliya. Itoobiya waxaan nahay dal darisa walaal ah, ilaaha mataqaanaa daris naga dhigay, inaan heshiinaan diyaar u nahay, inaan wax qaybsanaan diyaar u nahay. laakiin erayada ra'iisul wasaaraha Itoobiya noo sheego dowladana kama maqalno. waxaan jeclaa lahayn in dowladuna ay noo fasirto, madaxweynuhu inuu noo fasiro maxaa socda. sovereignty-ga Soomaaliya waa wax qaali ah. dad u soo dhintay, dad u soo dhaawacmay, xoolaha lagu bixiyay. annaga iyo walaalaheena Itoobiya mugdiyaana dhex yaalla, taariikh madoobaana dhex taalla. haddiiba ay dhab ka tahay walaalaheen inaan wax wada yeelano, aan wada hadalno. 2007 noogu dambeysay, 2008 noogu dambeysay. halkan dadaa lagu laayay, dadaa ku dhintay Soomaaliyeed, ciidamada soo duulay, waxba la iskama dhihin. iskaashiga dhex maraya Soomaaliya, Itoobiya, Eritrea kaliya oo dowladaha kale oo Afrika ama geeska Afrika ay dhex mareenin macnihiisu muxuu yahay? Sheekh Shariif Sheekh Axmed madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa soo hadal qaaday wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland, waxaana madaxda dowladda federaalka uu uga digay in arrimaha Somaliland aan loo isticmaalin ololo doorasho. walaalaheena reer Somaliland marar badan horaan u sheegnay maxay ahayd dhibaa ku dhacay. shalay markay xoroobeen calanka iyaga noo keenay, midnimada iyaga noo keenay. tabashadoodii si siyaasi in loo xalliyo looma xallin. kadib haddana markii 1990 burburku yimiday ayagoon joogina la tashaday. waa isku tashadeen aniga iyo madaxweyne Xasan ba labadii xukuumadooda aan hogaaminayna wada hadal aan la bilaabay. ujeedaduna waxay ahayd inaan ka qancino wixii ku dhacay. dadka Soomaaliyeed shalay baahida isu qabeen isu qabaan, waxay isu yihiin inay isku soo laabtaan meel la soo gaarsiiyo. aadan uga xunnahay bariyo dhaweeday waxaa dhacaya waxyaabo aan ku fiicnayn dowladnimada iyo dadka Soomaaliyeed iyo taariikhdaba. qadiyadaas waa qadiyad aan geli karin campaign, waa qadiyad aan geli karin mataqaanaa hawlo gaara in mataqaanaa looga faa'iideeyo. waa qadiyad derisku sensitive ah oo aysan fiicnayn inay soo farageliyaan. marka waxaan rabnaa arrinta Somaliland waa national issue. waxay u baahan tahay waqti, waxay u baahan tahay fikir, waxay u baahan tahay dadka Soomaaliyeed isaga yimaadaan, laga wada hadlay u baahan tahay. marka waxaan leenahay ayadana cidii gacmaha kula jirta kala baxdo.
xasan sheekh maxamuud madaxweynihii hore ee dalka oo isna ku dheeraaday ka hadalka arrimaha doorashooyinka ayaa sidoo kale soo hadal qaaday khudbaddii madaxweyne farmaajo uu ka horjeediyey baarlamaanka federaalka labadiisa gole waxa uu xusay in madaxweynaha dalku uusan madasha ka sheegin khudbaddii laga sugayey isagoo saluug ka muujiyey sida madaxweyne farmaajo uu uga hadlay arrimaha ammaanka dalka oo caasimadda ay uga horreyso. madaxweynuhu wuxuu sheegay dalkan sanadkan 24 shil ama 24 weerar oo amni darro ah inay ka dhacday. jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa golaha amniga riboorka ay soo saareen 180 iyo jarjara ku taal inay sanadkan 4 bilood ugu horeysay inay magaaladan muqdisho ay ka dhaceen. muqdisho kaliya 180 iyo 4 waxay ahayn ma garanayo 80 iyo xogaa. hadda waa public domain meel kastay taala soo heybadii iyo sharaftii iyo karaamadii madaxweynaha meeshaas soo kuma nusqaamayso. maxamed cabdullaahi farmaajo ma waxay ka nusqaamaysa anaga dhameen naga nusqaamay madaxweynuhu inuu xafidayo heybad la harna madaxweynaha dadka Allah hadlo. xasan sheekh maxamuud ayaa gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka waxa uu ku amaanay baaqi ka soo baxay ee ku aadanaa in doorashooyinka dalka ka dhacayo nooca ay noqonayaan laga wada tashto waxaase uu ka digay in guddoonka aqalka sare aan lagu abaalmarin in khilaaf dhexdiisa laga abuuro. maanta markii ugu horeysay oo hay'adaha dastuuriga mid ka mid ah ay wadab meel ay farta ku fiiqda waa wax badanaa ka dhiman laakiin tallaabo weyn oo dheer oo dhinaca saxda ah loo qaado waa tallaabadaas. sida aan naqiinay waxaan ka digaynaa in haddana aqalkaas inta la dhex galo lees qabadsiiyo leeska hor keeno balaayo laga shaqeeyo soo ku dumi lahaa asiga laga shaqeeyo marar badan oo hore wixii aan soo aragnay waa ka digaynaa waqtigeediina sideedaba aslanba uma fiicneen waqtigeediina lama joogo. xasan sheekh maxamuud ayaa soo hadal qaaday muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya waxaana uu madaxda dowladda federaalka ka dalbaday in arrintaas oo tuhun badan ay ka qabaan ay dowladdu sharaxaad ka bixiso. arrinta badda dayaca ka jira waxaan rabi lahayn dayacaas waxaa laga yaabaa sida aan u tuumsannahay iyo sidaan u aaminsannahay inaanu ahayna laga yaabaa laakiin waxaan rabi lahayn in naloo sheego war dhibka waxaan aad tuumsantihiin ma jiraan khaladkaadna ma jiro sida saxda ahayd waa sidaan kanna waa samaynay kanna annagaa idii og kanna waa ku dadaalna waa qaba kari weyne waxa waaye waa runtii aan sheegayna waay laakiin 3 jeer oo isku xigta kayska badda maxkamaddu inay inta soo qaado annaga nimankan dariska annaga Kenya isku haysanay mar walba Kenya siday rabtay laga yeelo aniga ma yani loo yaraan ahayo sharci yaqaanan ahay ma dhahayo laakiin mantiqa caadiga ah sharcigu waa wax ku salaysan caqliga bini'aadamka caadiga ah ilaa bini'aadamkana inay ku dhaqmaan loo sameeyo laba darafo is haysato yaa maxkamadda markasta inta tagto yaa hal daraf warkiisii la yeelaya mar labaad haddana asaa la yeelaya saddexaad asaa la yeelaya sababtii loo yeelayna ma naqaano xataa sabab macquula inay iska jirta aniga hadda maba ii muuqata sabab macquula laakiin waaba iska jiri kartaaba laakiin wixii in la sheego soo uma baahan war waa orodnay waa dadaalnay waa dagaalanay laakiin meeshaanaan dhaafi weyne waa talo annaga waxaan dhahnay dowladda Kenya waa la negotiate gareynay waa la fadhiisanay mar iyo labaan la fadhiisanay waa la xaajoonay laakiin inaan maxkamadda aadnay naga fursan weyday maahana inaan intaan heshiino dhag aan waxayna sida aan wada rabno aan ku dhamaysan waa jeclayn markaan weynay meelaan aadnay meeshii la aadi lahaayaan aadnay war waxaad rabtaa haddaad weyda xataa waxaad ka badi weydaan la yeelaa dadka laakiin waa inaa u sheegtaa waxaad ka badi weyda la aqbali maayo mana la liqaayo haddii aadan dadka u sheegin madaxweyne dadka hor imaaw waa mar kale u sheeg arrinta badda kala hadal adiga kala hadal adaa iskale waa maalin dhaweyd waraysi leeyahay qadiyadda badda waa qadiyad madaxweynuhu uu leeyahay waay wasiir male ra'iisul wasaare male maxaan ku raacid kala male cidoo madaxweynuhu asaa authorization hebelaa qadiyadda badda ka hadlaayo looyarka asaa magacaabo warqadda inuu asiga gudbiyey ahayd ra'iisul wasaare ku-xigeen waxbaa gudbiyay maalin warqada arkeen anu ma ogin taas madaxweynaha mas'uuliyadiisa inay tahay ogahay aniga madaxweyne qadiyadda badda walwalay nagu haydaa waa ka murugsannahay cabsiyaa nagu jirto siday wax u dhacayaanaan cabsi gelinaysa iyo jawiga muuqdo iyo war la'aanta jaahilaan ka nahay waxa jira xikmaddii carabigeeda oo dhahaysa annaasu caduwu limaa jahala jaahilaan ka nahay cadow iyo dulmi iyo balaayo inay ka soo socotaan aragnaa haddaadan walax ka duwan noo sheegin adiga dadka hor imaaw
sheeg. isku soo wada duubay hadalka madaxdii hore ee dalka ayaa diraya fariin ku aadan inay doonayaan in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo nuuca ay noqonaysana laga wada tashto. Cabbaas Xuseen Muuse, Home Cable TV, Muqdisho.